kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka warbaahinta walwal qodobada aan idiin haynana waxaa qayb ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo xirtay wadooyin horle iyo ciidamo la dhigay bara muhiim oo Muqdisho ku yaala cabsi xoogan ayaa ka taagan magaalada Muqdisho Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif oo dejinaya qorshe xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay go'aano adag ka qaadatay mucaaradka ciidamaha beeleed u abaabulan oo bilaabay in ay soo galaan gudaha magaalada Muqdisho shacabka Muqdisho cabsi ayay ka qabaan xilli mucaaradka loo diiday in ay sameeyaan wax banaanbaxa mucaaradku go'aan noocee ayay qaateen kulan ayay yeesheen xoga ayaan idinkaga haynaa kulan ay yeesheen indhacadda iyo midowga musharaxiinta la isku fahmi waayay laguna kala kacay haddaba maxaa keenay in musharaxiinta iyo indhacadde ay isfahmi waayaan xogo hoose ayaan idinkaga haynaa dowlad goboleedka Puntland oo 8 shuruud adag ah ku xirtay ka qaybgalka shirka wada tashiga doorashooyinka ee loo cilaamiyay inuu ka dhaco magaalada Muqdisho xilli shirkaasi aan wili uusan qabsoomin qodobadaas ayaad warkeena ku daawan doontaan fadlan haddaad nagu cusubtahay channelka subscribe sar siina share gareesi waxyaabaan halkan soo galina ay ku soo gaaraan lana sii wadaaga asxaabtaada aan ku bilownay wadooyin horle ayaa saaka dadka reer Muqdisho waxay ku waabareysteen kuwaasoo ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay xireen wadooyinkan u muhiimka isku socodka magaalada waxaana lagu gooyay dhagxaan iyo biro si gaadiidku aysan u isticmaalin wadooyinkaasi arrintan ayaa waxay salka ku haysaa baaqi ay midowga musharaxiinta shaaciyeen ee ahaa in jimcaha soo socda ay qaban doonaan dibadbax kale oo ka dhacaya daljirka daahsoonna meelaha ay dowladdu xirtay waxaa ka mid ah wadada gasha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho wadadaasi oo lagu jaray biro ayadoona loo diiday gaadiidka u socda dhinaca garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho durbaba caasimada magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa culays ciidan iyo dhaqdhaqaaqyo ka socda dhinaca dowladda Soomaaliya oo xoog ay ku saarayso dhinaca mucaaradka saaka ayaana waxa la baarayay gaadiidka iyo dadweynaha oo ay su'aalo weydiinayeen ciidamada wadooyinka taagan ee dowladda Soomaaliya ay geysay wadooyinkaasi waxa cabsi xoogan qaba dadka shacabka ee ku nool magaalada Muqdisho kuwaasoo ka cabsi qaba qaabka ay dowladdu u wajahayso koortaga banaanbaxa ay cilaamiyeen midowga musharaxiinta Soomaaliya dhawaan dhinaca kalena ciidamaha beeleed u abaabulan oo daacad u ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isku urursanaya deegaanada waqooyi ee magaalada Muqdisho ciidankan oo tiro ahaan aan yareyn ayaa wada qorshe ay gudaha ugu soo galayaan magaalada Muqdisho habeenka Jimcaha uu soo galayo maadaama maalinteeda filayo inuu Muqdisho ka dhaco banaanbax lagu diidan yahay madaxweynaha uu waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay wadaan midowga musharaxiinta mucaaradka sida aan xogta ku helnay ciidankan ayaa ilaalinaya amniga dadka banaanbaxa dhigaya iyo hoggaanka midowga musharaxiinta oo ka qayb galaya banaanbaxaasi ay cilaamiyeen dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan dhigtay taalada daljirka daahsan oo banaanbax looga cabsi qabo iyo deegaano kale oo suurtagal ay tahay in laga soo abaabulo ciidamo kale kuwaasoo lagu arkayo ciidamo hubaysan oo si aada u feejigan madaxda midowga musharaxiinta ayaa ku adkaysanaya in ay dhigtaan banaanbax halka dowladda federaalka Soomaaliya diidan tahay waxaana laga cabsi qabaa in isku dhac uu dhex maro labadaasi ciidan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubno kamid ah golaha midowga musharaxiinta ayaa kulan saacado qaatay waxay la qaateen indhacadde kaasi oo uga hadleen go'aankii xukuumadda ee lagu joojiyay banaanbaxyada iyo kulamada dadweynaha midowga musharaxiinta ayaa dejiyay qorshayaal u suurto gelinaya in ay dhigaan banaanbax toddobaadkan waxaana la filayaa inay saacadaha soo aadan ay warbaahinta la hadlaan dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa shirar gaargaara oo ay uga hadlayso abaabulka banaanbaxa mucaaradka iyo sidii loo joojin lahaa waxay ka wadaa magaalada Muqdisho wasiiro ka tirsan xukuumadda Rooble ayaa la kulmay siyaasiyiin ku hayb ah madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif waxa ayna ka dalbadeen in ay ka qayb qaataan baajinta banaanbaxa la qorsheeyay ee ka dhacaya taalada daljirka daahsan kuwaasi oo ay ku dhawaaqeen midowga musharaxiinta durbaba magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa laga dareemayaa culays ciidan iyo dhaqdhaqaaqyo ka socda dhinaca dawladda goobo horle ayaana ciidamo la dhigay waxaana jidadka caasimada kuwooda ugu muhiimsan lagu baaraya gaadiidka dadweynaha sidoo kale wadada aada garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho
ayaa waxaa lagu gooyey baabuur waaweyn kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka ay dowladda Soomaaliya u dirtay ciidamada kuwaas oo ka hortagaya banaanbaxa ay cilaamiyeen midowga musharaxiinta. waxaa sii kordhaya walwalka laga qabo in khilaafka ka taagan doorashada dalka uu sababo gacan ka hadal. waxa ayna musharaxiinta mucaaradka ku adkeysanayaan in jimcaha soo socda ay qabanayaan banaanbax nabadeed, halka dowladdu ay si cad u sheegtay in aysan ogolaan doonin wax banaanbaxa oo ka dhaca magaalada Muqdisho. maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ka ciirciirayay banaanbaxyo ay cilaaminayeen midowga musharaxiinta kuwaasoo looga soo horjeeday dowladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee wakhtigeedu uu dhammaaday. sida aan xogta ku helnay, xubno ka sare oo ka tirsan golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa Hotel Jazeera kula kulmay Genaraal Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacadde iyo mas'uuliyiin ka tirsan midowga musharaxiinta. Genaraal Indhacadde ayaa la sheegay in hoteelka uu ugu tegay xubno ka mid ah midowga musharaxiinta isagoo ka raali geliyey hadal uu warbaahinta ka sheegay maalmo ka hor markii la weeraray madaxweynayaashii hore 19 bishan, weerarkaasoo ka dhacay taalada daljirka Taasoon iyo Hotel Maacido oo ay ku jiraan madaxweynayaashaasi. Genaraal Indhacadde dadka uu la kulmay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariin Xuseen Guuleed, Sheekh Daahir Maxamuud Geele iyo madaxweynayaashii hore, isagoo mid uga raali geliyey hadalkiisa oo noqday qodob ay dowladda Soomaaliya u cuskatay weerarkaasi oo ay culays ku saartay midowga musharaxiinta. inkastoo Genaraal Indhacadde si gaara ula kulmay madaxdan islamarkaana uu ka cudur daartay hadalkiisa, ayaa haddana ila waraadiyo muhiima waxa ay noo sheegeen in aysan kalsooni kala dhaxaynin midowga musharaxiinta mucaaradka iyo Genaraal Indhacadde. waxaa isa soo taraya khilaafyada horta leh ee soo kala dhexgalaya midowga musharaxiinta kadib markii dhowr jeer lagu sheegay in Genaraal Indhacadde uu amniga midowga musharaxiinta uu isagu mas'uul ka yahay. ugu dambeyntiina maamul goboleedka Puntland ayaa shuruudihii ugu adkaa ku xiray ka qaybgalka shirka dambe ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka, taasi oo si wiiqaysa rajadii laga qabay in laga gudbo ismariwaaga ka taagan dhanka doorashada Soomaaliya. Puntland ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay caqabad ku noqdeen fulinta heshiiskii doorashooyinka ee 17 September iyo habraacyadiisa kuwaasoo lagu gaaray magaalada Muqdisho. war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay waxay taasi si cad u soo ifbaxday muddadii lagu guda jiray wadaxaajoodyadii shirkii Dhuusamareeb ee 6 February 2020 kadib markii madaxweyne Farmaajo uu u safray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug iyadoo wax xal ah aan laga gaarin qodobadii la isku khilaafsanaa, ayaa lagu yiri qoraalka Puntland ka soo baxay. qoraalkan ayaa intaasi ku daray in laga duulayo marxaladda dalka oo soo cusboonaatay 19 bishan aynu ku guda jirno ee February iyo xasilooni darrada ka dhalatay caqabadihii lagula kacay midowga musharaxiinta ayaa waxa ay daliil cad u tahay in madaxweynaha uu waqtigiisu dhammaaday uusan rabin inuu dalka doorasho ka qabto. dowlad goboleedka Puntland iyo Jubaland ayaa qayb ka ah dowlad goboleedyada aan weli heshiis la gaarin madaxweynaha Soomaaliya, waxaana la isku mari laayahay qodobo la gaaray 17 September ee sanadkii 2020. qodobadaasoo ay qayb ka ahaayeen in arrinta gobolka Gado lagu wareejiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo in xildhibaanada ka soo galaya gobolada waqooyi uu maamulo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi. guud ahaana daawadayaal warkaad kala socoteen warbaahinta Walwal xilligan waa naga intaa. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.